dadka intooda badan mawduucyada sida aadka ay u xiiseeyaan in wax badan ay ka ogaadaan waa jaceylka. maxay lamaanayaashu isku soo jiitaan qaankood qaanka kale? dhab ahaantii jaceylku ma wax xaqiiqo ahba ama waa mala-awaalka maskaxda? waa maxay sababta keentay in qof uu ku lamaanaado qof kale? sidee buu jaceylku ugu dhex socdaa maskaxdeena? muuqaalkani waxaad ku arki doontaan neurobiology-ga jaceylka iyo sida jinkeenu ugu dhex socdo. si aan u bilowno mawduuca, haddii aad isleedahay wax badan ayaad ka faa'iidi doontaa si aan ku aragno laagsaar, mahadsanid. jaceylku waa aayad ilaahay ee koonkani uu dhex dhigay lab iyo dhadig si qaankood qaan kale ay u wada shaqeeyaan, jiil cusubna ay u soo saaraan. suuradda Ruum aayadda 21aad. nimanka noocan oo kale ah dumarka intooda badan waa kuwa xaggooda laga xusho. nimanka noocan oo kale aad iyo aad ugu soo jiidasho fiican yihiin nimanka kale. si qofku jaceyl ugu dhashtana waxaa loo baahan yahay inuu ka gudbo marxalado kala duwan. dumarku maxay u jecel yihiin ragga noocani oo kale ah? sidoo kale waa maxay sababta dumarku ay u adeegsadaan chemicals muuqaalkoodu bedelayo? hormoonadan gabdhaha qaarkood uma dhamaystirno, niman badan uma dhamaystirno. ragga qaarkood hormoonadan iskuma jaangoona. waxay bilaabayaan dadka inay dabeecadu qiyaaneeyaan. waxay isku dayayaan inay plastic surgery sameeyaanoo wejigooda dhinac ka qalqaloociyaan, ay toosistaan. kadibna waxay amaan si lamaanaha chemicalsku ma weeran chemistry ba dumarku ay ku qaadaan ragga iyagoo aanan kaban qabin? waa maxay sababta dumarka intooda badan ay u badsadaan midabka casaanka ah fawrahooda? sidee bay raggu u qiyaanayaan dabeecaddu? ragguse gabdhahe ayaa soo jiita? waa maxay astaanta ay leedahay gabadha soo jiidashada badan? dhammaan su'aalahani iyo kuwa la midka ahba waxaad ku arki doontaa muuqaalkani. ku soo dhawow muuqaal ka kooban muddo 55 daqiiqo ah. barkintaada dheerayso, daawasho wacan. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaan ka hadli doonaa topiga kuu muuqda ee xasaasiga ah runtii ee taariikhda noolaha bani aadamka ilaa maantuna ah topic ka hadalkiisa uu socdo. noolaha bani aadamku marba dhinac uu u tuuro, mar walba si looga hadlo, mar gabayada lagu soo qaato, mar taariikhda lagu soo qaato, mar sayniska lagu soo qaato. waa topic runtii aad iyo aad xasaasi u ah, waana topigan jaceylka loo yaqaano. runtii topigani waa topic aad iyo aad u weyn. horaanna waxaan ka sameeyey muuqaal noocani oo kale ah, laakiin muuqaalka maanta aan kaga hadli doono wuxuu noqon doonaa muuqaal kooban oo ku fahamsiin doono waa maxay jaceyl, jaceylku sidoo buu qof ugu dhaca. su-aashu waxay tahay, maxaa labadan qof isku keenay? yacni labadan qof maxay isku soo xushteen? waa maxay cilaaqaadka ama xiriirka ka dhexeeya labadan qof? way kala maarmi karaan, ama xitaa labadan qof maxaa iyaga keliya unique ka dhigay? maxay ku kooban yihiin? maxay dadka kale dheer yihiin? maxay labadooda isku soo doorteen? labadan qof way isjecel yihiin marka lagu dhaho. dadka kale ma wax aysan haysanin oo iyagu ay haystaan miyaa jiro? sidaas darteeda miyaa isku soo raaceen? waa maxay backgroundka ka dambeeya? sidoo kale jaceylku maskaxdeena sidee buu ula falgalaa? sidee buu maskaxdeenu jaceylku ugu shaqeeyaa? waxyaabahaasi iyo tobikyo lamid ah ayaan ku falanqeyn doonaa topigan. waxaan idin soo jeedin doona anigoona ah cabdirashiid axmed sheekh. haddaba topiga maanta wuxuu ka koobnaan doonaa 6 qaybood. qaybta koowaad waa jaceylka iyo nolosha, ahmiyadda weyn ee nolosheena jaceylku uu ku leeyahay. waayo malkuulkan jaceylka malkuul la yanaysan kara ma. waxaan ogsoonahay taariikhdii tagtay ilaa maanta waa malkuulka hadalkiisu noolaha bani aadamku uusan ka daalin. waa malkuul buwaag badan laga qoray. waa malkuul abwaanada, gabyaadu, taariikhyahanadu, cid waliba maqaal ay xataa sanadihii u dambeeyay psychologistayaashu ay kusoo biireen ka hadalka mawduucan. sadanadeedu mawduucan sidan aadka u weyn ee jaceylka ah nolosheena doonka muhiimka uu ku leeyahay. sidoo kale kama hadli doona anigu gabay iyo taariikh dhacday iyo wax kale. hadalkeegu waa neuroscience-ku. saynisku muxuu ka sheegay jaceyl? waa maxay jaceyl? sidoo kale waxaan ka hadli doonaa horumarka jaceylka. jaceylku ma yahay mid universal ah? hadduu yahay universal oo dhammaan nooleyaasha oo dhan uu ku dhaco, sidee buu tadawur ugu soo galay? jaceylku asal ahaan ma yahay mulkuul soo tadawuray laftinkiisu? sidoo kale waxaan ka hadli doonaa jaceylka iyo maskaxda. noolaha bani aadamka maskaxdiisu jaceylka markuu ku dhaco sidee baa maskaxdiisa u shaqeysaa? maskaxdiisu sidee noqotaa? qofka markuu jaceyl ku dhaco normalka ah iyo qofka aan normalka ahna isbarbardhigi doonaa. kadibna kan jaceylka ku dhacay jinkiisu maxaa iska bedelay? kan aan jaceylka qabinna ama jaceylka aanan ku dhicinna
maxaa jinkiisu iska bedelay, yacni labadooda isbandhig aan ku samayn doonaa. sidoo kale waxaan ka hadli doonaa qodobka afaraad, doorashada lamaanaha. labadan lamaane maxaa unique ka dhigay, maxay isku soo doortaan shaksigan A shaksigan B buu jecel yahay, shaksiyadan B na waxay jeceshahay shaksigan A. maxaa labadooda isku keenay, yacni electromagnetiga ka dhexeeya labadan qof, soo jiidashadooda, chemistryga noloshooda sidee buu xaaladaasi noqonaya, sidee buu u shaqeynaya. sidoo kale waxaan ka hadli doonaa doorashada lamaanaha kadib khiyaaneynta dabeecaddu, waayo nooleyaashu si ay isku jeclaadaan darteedu khiyaano dabeecadeed bay samayn doonaan. khiyaaneynta dabeecaddan ulama jeedo labada qof xiriirka mid khiyaano inuu sameeyo midna uga baxo, no, topigeegu kaas ma aha. topigu waa khiyaaneynta dabeecaddu, si lamaane aada u heli lahayd waxyaabo attention aa uga heli kartid, sidee baa loo sameeya, waxyaabahaasaan ku falanqeyn doonaa. sidoo kale maxaa laysku furaa waa topic runtii topigan maanta ka baxsan oo kale ah, laakiin waxaan anigu uga hadli doonaa si jaceylku basic ma u naqan karaa, sababaha laysku furo ma u naqan karaa, waa su-aal, sidaasaan uga hadli doonaa, iyo chemistryga jaceylka. qaybta koowaad, jaceylka iyo nolosha. intaan u gudagelin ka hor, topiga hadduu dheeraado, waayo waxaan ku socdo waa saacad, hadduu dheeraado waan istaajin doonaa, intaa wixii ka dambeeya part 2 aa kusoo qaadan doonaa. qaybta koowaad, jaceylka iyo nolosha. qeexis kooban, jaceylka iyo nolosha markaan ku dhaho qof walba wuu yaqaanaa jaceyl, yacni jaceylkuna wuxuu kamid yahay topikada sida aadka bani aadamku u daneeyo inuu wax badan ka ogaado. hadday noqoto buwaag romaan, hadday noqoto taariikh dhacday, qisooyin laba qof isjeclaadeen, hadday noqoto ayu shay noolaha bani aadamka oo noloshiisii ku dhisan ama noloshiisii la xiriira, maadaama jaceylku basic ay u tahay, waa topic ahmiyad weyn noloshaanu sidaa ugu leh. ugu horeyn waxaa loo baahan yahay si topigan u gudagalo inaan qeexo jaceyl, laakiin waxaan ka xumahay inaan anigu ahayn shaksi yacni definition bixiyo. inta badan anigu topic aan soo jeeday ama topic aan bixiyo wax definition ah waa ka hortaga oo definition ma bixiyo. why? definitionku waa inaan xadido topigu definition haddii ii qaasa anigu aan bixiyo, intaa wixii ka dambeeya falsafadaheedii aragtiyahaygaan soo gudbin doonaa. bar haddii xitaa falsafadayda aan soo gudbin doono falsafada ummado ee leeyihiin inaan soo qaado oo kuu soo gudbiya noqon doontaa, taasina xornimadaada oo meel aan uga dhacay ama aan xadidaya noqonaysaa. saas darteedu topigan jaceylkuna wuu ka shisheeya topigyada kaleo qeexisteeda iguma waafaqi doontid, qeexista qof kalena kuma waafaqi doontid. qof walbo waa topic qaas isaga uu u yahay qeexis uu ka bixiyo. saa daraadeed sideedaba definitionku topiga unbuu xadidaa, topic hadduu xadidana aragtida qofku uu doonayo unbuu kaa dhaadhiciya si fudud. saa daraadeedu terminolojiyadan qeexistu markaan dhinac uga soo tago, markaan topiga ku fahamsiiyo kadib adigu qeexis samayso adiga kuu qaas ah, kadib maybe mideeda waafaq ama mid kale waafaq, waa mid markaa adiga kuu taala. intaa wixii ka dambeeya, jaceylku iyo nolosha. asal ahaan waxaan inagu ogsoonahay jaceylku inuu yahay molecule xayaatada lafdhabar u ah, yacni nolosha lafdhabar u ah. nolosha markaan ku leeyahay maaha nolosha bani aadamka oo keliya, nolosha dhulka saaran oo dhan from 4.5 bilyan sano ka hor ilaa maanta, nolosha anwaacda kala duwan ee nooleyaasha dhulka saaran oo dhan, khaasatan nooleyaasha naasleyda, waa jaceylku mid lafdhabar waa si ay u jiraan. waayo nooleyaasha naasleyda waa nooleyaal saksi ku tirmaa. nooleyaashan war haddii saksi ku tirmaan waxaa laga maarmaana isku imaatan, wada noolaansho iyo inay sii jiraan oo dhulka ay kusii nagaadaan generation iyaga lamid ah si ay usoo saaraan. waa muhiim xiriir yar oo ka dhexeeyo isku keenistooduna hal meel, yacni sababa inuu jiro, kaasina waa mid nolosheen oo dhan jiritaankeeda basic u ah, yacni si kooban. inkastoo qodobkan laftinkiisu uu u muuqdo si qeexitaan oo kale ah, laakiin jaceylku ahmiyad weyn uu noloshan uu ku leeyahay. ahmiyadda weyn uu noloshan uu ku leeyahay waxaa waaye nooleyaashu ama walax waliba oo xayaatada la qabto waxaa bani aadamku u adabtigarashay ama u samaysan yahay isagoo hadiyad filanaya inuu sameeyo. masalan qofka hadduu shaqaynayo wuxuu ku tashadaa inuu macaash heli doono, uu miishaan heli doono, intaa wixii ka dambeeyana miishaankaasi nafsadiisa uu ku abaalmarin ama familkiisa ama gurigiisa uu ku dhisan doono ama wax uu ku qabsan doono, macaashkaas uu ku fakerayo. ama qofka hadduu wax baranayo shahaada inuu heli doono kadibna uu shaqeeyo waxbuu ku fekeraa.
qof waliba xataa qofka hadduu gaajoodo waxyaab kadib wuxuu filan doonaa inuu raashin heli doono, jinkiisu u abaalmarin doono. hadduu oomo sidoo kale. yani xayaatadoo dhan ama general rule oo xayaatadeena ku jiro ama qaanuunka dabeecadda ee nolosheenu mid kamid ah waa in wax walba inagu aan qabanayno goolka ka dambe inagu ku tashanayno inaan qabano. jinkeenu sidaas waa dhibtigaraysan yahay, maskaxdeenu sidaasay u samaysan tahay. waayo xitaa hormoonada laftinkooda reactionkay bixin doonaan iskagama socdaan si random ah, halkay ku qabsan doonaan ama halkay ku dhegi doonaan waxay u socdaan si yani loo soo programiyey, ama waxay u socdaan ayagoo gooshooda yaqaano oo kale ay ku dhaqdhaqaaqaan. haddaba waxaan halkan uga dan lehay inaan kuu caddeeyo xayaatadu maadaama wax waliba goolkeeda noolaha isagoo eegaya ama ku tashanayo uu sameeyo, jaceylkuna waa sheyga taranka ah. noolayaashu si ay u tarmaan, si ay nolosha ugu nagaadaan, si ay hal meel u wada kulmaan, si ay noloshooda xiriir ama wada shaqayn dhab ah ay uga dhexeyso, shay waxaa jiro isku keenayo. waa maxay goolka sheygaasi doonka muhiimka ka qaadanaya? waa jecel inay labadoodu wada kulmaan, wada noolaadaan, wada shaqeeyaan, nolol cusub inay samaystaan, fikirkaasi noloshaasi ay guda galaan. doonka muhiimka waxa ka qayb qaadanaya waa molecuulkan oo jecelka ah. saa daraaddeedu jaceylku waxaan dhihi karnaa waa waxa xayaatadeena jiritaankeeda oo dhan backgroundka aas-aasiga ah ay ku taagan tahay waa jecel. hadduusan jirin xayaatadu random, xataa example noocaas oo kale gadaal dambe kaaga keeni doonaa. laakiin waxaa muhiim ah inaad fahamtid xayaatadeenu hadduusan jecel jirin ama jecel haddii aanan la aqoon lahayn, nolosheenu isku imaatankeenu, wada shaqaynteena, uwad cusub oo yani generation sii jiro inaan soo saarno way adkaan lahayd. sidoo kale xitaa dabeecadii anwaacda kala duwan ee noolayaashuna sidoo kale haddii aan fiirnay noolayaasha inagu nala midkaa sida shimpanziga, gorilaha, yani ayu nooc oo dabeecadda ay dhendhesaindhahay, loofka xayawaanada laftinkoodu waa mid dhankooda ka jira. okay, maadaama jaceylku ahmiyad weyn nolosheenu uu ku leeyahay, waxaa jira doodo badan oo jaceylku ku saabsan. haddii aad fiirso taariikhihii tegay waxaa arki doontaa filosofiyadu, abwaanadu, waayo horta waa molecuul sidan aadka muhiimkuwa noole walba uu ka hadlay. waa molecuul cid walba ee wax ka qortay, cid walba isku dayda inay wax ka sheegto. saa daraaddeedu molecuulkan xasaasiga, molecuulkan xayaatadeen oo dhan qeyb kamid ah, yani part of life-ka ah, doodo badan ay ku jiro. filosofiyadu qaarna waxbay ka hadleen jaceylku ma universal ba, jaceylku ma lagu dhashtaa. sidoo kale tan jaceylku haddii xataa test la sameeyo, ilmo siday u dhashteen meel bani aadamku ka baxsan ama wax contacti aan la sameyn, meel la geeyo xero ah, danna bani aadamka o dhan uu ka fogaado, ma laga yaabaa in jaceyl iskooda ay u samaystaan? yani jaceylku ma wax lagu dhashtayba ama waa wax gadaal noolaha uga imaado? dooda waxyaabaha lamida, jaceylku ma genetic ba, ma wax la xiriira, waxyaabahaas oo dhan asal ahaan waa dooda. laakiin hadda jaceylkii noloshii topiga u baahana inaan ka hadla iyo doodahan inaan gudagalo waxay noqonaysaa mid yani topigan uu ku dheeraanaya. ciddii u baahan in kutubtay ka daran ama xitaa topic kalaan ka sameynaya. laakiin waxaa hadda xusuusin iga ah oo keliya aan ku rabaa inaan ku fahamsiiyo jaceylku dooda badan inay ku jiraan, siyaabuhu u jiro, siduu qofku ugu dhaco, siduu jinkiisa marxaladda iyo processku u maro, dad badan aan ka doodo. laakiin sida dhabtaa inagu maantana aan ka hadli doono waa dhankiiyo neurobiology-gu. haddaba qur-aanku aragtida jaceylku uu ka bixiyo waxaa waay waa aragti runtii aad iyo aad cajiib u ah. markaa fiiriso qur-aanku wuxuu leeyahay jaceylku waa aayad ilaahay ee dhulkani uu keenay si noolayaasha lab iyo dhadig dhexdoodu wada shaqayn ay ugu dhexeysa, si ay qaarkood qaar kale isku heshadaan. waa wax kon ka imaadoo la dhex dhigay isku imaatankooda, jiritaankooda si ay u ilaashadaan. haddii aad fiiriso qur-aanka suuradda Rum aayadda 21 sidaasaa ku qoran ilaahay uu leeyahay waa wax universal ah oo ilaahay noolayaasha lab iyo dhadig dhexdooda uu dhex dhigay si ay isku heshadaan ayna u jiraan qaarkood qaarka kale. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. أوكي، جعلكو أهمية وين إن نرشوا ولايهاي إنتان وإنه قفلان تهدي عن محوها هاي كجدبو. هربان جعلكو ميهاي ملكو صوت تدوري سيدا دبا ملكول كان إنه صوت تدوري أما إنه evolution صوت قال إن لبارو أما أنكو دو سلسلدان إبرونسيس كانوا كسو قدبي وحادي آتو على كنتي إن لغا جواب وايو شيء بركو تدبر وصوت قالوا وحي uguweyn inagu aan ku ogaan karno waa inaan lafihiisu helno, waa inaan kadibna isku dayno inaan baarno. malaayiin sano ka hor waxaa adag in hormoono halkaas aan kasoo saarno lafihi, hormoonadaasina aan baarno indheeno siday lab iyo dhadig isku soo raadsan jireen, siday yani iskugu hasaabi jireen. waxyaabahaas dhan waxay u baahan tahay waqti iyo juhdi aad u adag. suuragal lama aha
waana wax aad iyo aad runtii teknolojiyada maanta inagu aan haysano aanan inoo saamixin inaan wax badan ka ogaano. sidoo kale jaceylku wuxuu xiriir si toos ah ula leeyahay ama xitaa mafti jaceylka oo dhan 99% wuxuu xiriir la leeyahay waa sex, yani yoolkiisu waa sex. sida bilowgiiba aan kugu soo sheegay, walax walba oo noolaha uu sameynay isagoo goolkiisu arkay buu sameeyaa. saadanadeedu sexiguna goolkiisu waa maxay? sexiguna maxaa yani macno u yeelaya, maxaa qurxinaya, maxaa natiijo in laga sugo ama gool ka dhigayo? waa sex, yani waa jaceyl. jaceylku maadaama uu yahay yoolka sexigu uu yahay, yani noolayaashu si ay u tarmaan ama hal meel ugu wada nagaadaan ama hal meel ugu wada kulmaan, waxaa laga maarmaanaya inay xiriir uu ka dhexeeyo. xiriirkan ka dhexeeyana waxay suganayaan ama ay filanayaan natiijo ah in ubad cusub ama family cusub ama generation cusub ay samaystaan. laakiin wasiilada ay ugu gudbayaanna waa wasiilada jaceylka, inay hal meel ku wada noolaadaan, ay wada shaqeeyaan, iyagoona gudanayo wasiilada kale ee sexiga ah. saadanadeedu dadka jaceylka ku cusub ama dadka laamahani jaceylka iyo mucaashaqiintu cusub, tobiga marka la dhaho sidaan jaceylka yoolkiisa asalka 95% waa sexy, waxaa laga yaabaa inay xanaaqaan oo dhahaan macquul ma sax ma ha kaban qabeen ama aysan kaban qabeen backgroundka ugu dambeeya ama gudaha noolaha bani aadamku. xitaa tijaabada lagu sameeyay qofku ama dadka mucaashaqiinta ama dadku maxay isku jeclaadaan basalahan, maxaa la isku jeclaadaa? gabadhan way u jeclaanaysaa, wiilkan maxay iyaduna u jeclaanaysaa? yani waa wiil, iyaduna waa gaban, yani waa noole bani aadam ah. yani biology ahaan iyo anatomy ahaan labadan qof yani wax difference u kala dhexeeyo sida weyn ma jiro. laakiin maxaa keenay in labadan wada noolaadaan oo wada shaqeeyaan oo isku imaataan iyo waxyaabahaas? asal ahaan waa sexy, noolaha bani aadamku maskaxdiisa ku adaptation garaysan, laakiin sida toos ah uusan isaga u fahamsanin waayo. si kale haddii aan u dhahno ama xataa example kooban, example-kan haddii population ku tarma yani population jaceyl ku tarma iyo population aanan jaceyl ku tarmin, haddii aan isbarbardhig aan ku sameyno, waxaa natiijada noo dhalan doonta, waxaa arki doonaa populationka jaceylka ku tarma ama populationka jaceylka isku goonsada, populationkan isku imaatankooda mucaashaqi iyo wax ka dhexeeya, iyo populationkan kale waxaa advantage badan populationka jaceylku. sababteedu waxaa waaye populationkan markuu jaceyl ka dhexeeyo, sida lamaanuhu ay kusoo xulanayaan way ka fakaraan. u fiirso, yani jaceyl marka lagu leeyahay qof inaad jeclaataa ka horeyso, qofkan inaad soo qancisaa ka horeyso, intaa waxay ka dambeeya qofkan markaa kasoo dhaadhicisa maskaxdiisa, intaa waxay ka dambeeya uu ku aqbalo wada noolaataan, waqti wada qaadataan, intaa kadib wada joogtaan. laftinkooda waa howl waqti, juhdi, dhaqaale u baahan waayo. saa daraaddeed populationkan waa population ku socdo yani ka fiirsi, caqli iyo logic iyo step by step. laakiin populationkan bar hadduusan jaceyl ka dhexeynin waa population tarmay, wuu jiri doonaa, laakiin populationkan kale advantage ma noqon doona. sababtoo ah populationkan advantage wuxuu ku yahay populationkan jaceylka ku tarma. iyagu sababahay isku soo dooranayaan waa maadaama jaceyl ay tahay fikrad iyo waxaa ka dhexeyso ubad in la ilaashado, la korsado, la noolaado. isku imaatankoodu sheyga isku xiriirinaya ayaa ah molekuul jaceyl ah. yani molekuulkan maadaama iyagu isku imaatankooda inaysan kala go-in buu sababaya. laakiin qoomkan ama populationkan wax jaceyl ah ka maqan, jaceyl dhan kuma jiro. saa daraaddeed jaceyl haddaysan iyagu ku tarmaynin, waxay noqon doonaan inay sex sameeyaan, tarmaan, laakiin isku imaatankiyaa ka maqan, iskuma imaanayaan. dhalshii ay keenaanna ma ilaalin karaan oo ma fiirin karaan, oo isku imaatankii iyo wada shaqeyntaa ka maqan. mar haddii wada shaqeyn aysan jirinna generationkaasi wuu baaba-aya, generationkaasi ma sii jiray. saa daraaddeed waa mid xitaa qur-aanku uu leeyahay jaceylku waa in dumarkii lab iyo dhalibba ay isweheshadaan iyo raxmad uu ilaahay idin yeelay. wajacala baynakum mawad, erayada xitaa laisu bandhigay litaskun waa sugnaansho oo wada joogid, isweheshasho, qarqud qaar kale, isdhamaystir, wada shaqeyn, waa inay laga faa'iidi karo, iyo raxmad. yani jaceylkan iyo raxmadu oo dhan wada imaatankan waa eray runtii aad iyo aad cajiib u laisbarbardhigo isku imaaday. haddaba marka jaceylku horumarkiisa iyo tadawur siduu usoo sameeyey in laga hadlo aaday u adag tahay. waayo in laga hadlo tani waxay sabab u tahay inaad fahamtid hormonal systemku siduu evolution usoo galay, nervous systemku siduu evolution usoo galay. waxyaabahan evolutionkooda inaad daraasaysidna mustaxiil waa oo teknolojiyadu maanta kuma saamaxayso. bar haddii xataa teknolojiyada markaa kasoo tagto, maanta laftinkeedu hormoon toos oo biology ah qofka in dhiiggiisa ka qaado aad soo saarto ama isolgarayso,
waa aad iyo aad mid u adag hormoon yani toos oo saafi ah qofka in jirkiisa aad kasoo saarto way adag tahay laakiin hormoon molecularka la falgalay oo qasmay mumkin waaye inaad hesho saas daraadeedu maanta laftunkeeda hormoonada in la helo maadaama sida ay u adagyihiin technolojiyada aysan saamaxaynin maxay kula tahay malaayiin sano ka hor in muxuu ahay evolutionkeesu dib loo raaco laakiin waxaa hoosta in laga xaqiiqa mudan maadaama jaceylku uu yahay wax saksiga la xiriiro nooleyaashu goormay saksi bilaabeen nooleyaashu goormay bilaabeen inay lab iyo dhadig u kala baxaan oo wada kulmaan yani nooleyaasha ukun inay dhigaan ayay ku tarmi jireen laakiin nooleyaasha ukuntii way ka gudbeen saksiyay bilaabeen lab iyo dhadig saksigan lab iyo dhadig inay bilaabaanna jaceylku waa bidaayadiis waa dhihi karnaa halkaas iyo theory inaan ka sameyno waxay noqon kartaa xoogaha albaab wuxuu inoo fududeynaa evolutionka inaan ka hadalno laakiin tani waxay iga tahay oo keliya inaan maskaxdaada ku furfuro aanu ka fahamsiyo asalka iyo biologiga iyo jaceylku siduu u socda laakiin hadda jaceylka iyo evolutionkiisu topiga muxuu ahay waa qayb yani baarti yar oo xiriir la leh waayo haddii waan ka hadlaynaa dhahna evolutionka laftirkiisa wuxuu yahay isagaba topic kale okay jaceylku sidee buu ku bilaabmaa jaceylka iyo maskaxdeena waayo maskaxda qofka ama qofka jaceylku sidee buu ugu dhacaa waayo qof walba jaceylku ma dhaco jidka markaa maanta marto dad badan jaceylku ma dhicin ama wuu kusoo dhacay waa horan ama laakiin hadda jaceylku wuu ka baaba'ay ama wuu rajeynayaa oo hadda jaceyl baa ku jiran laakiin qofkii wax u sheegan la-eh marxalada kala duwana noolaha bani aadamku uu ku jiraa saa daraadeedu jaceylku asal ahaan wuxuu ku bilaabmaa aragtida indhayn waa mid iska common ah qof walba u ogyahay jaceylku aragtiyu ku bilaabmaa qofka waa inuu aragtaa danna aad ku qanacdaa sababkiisu maskaxdaadu markay gasho oo aad adigu analyze garayso uu ku qanciyo uu ku cajabiyo intaa waxay ka dambeeya qofkii waa isbaranaysaan markaa isbarataan kadib waxyaabihii aa u darantay ama u rabtay qofka ugu soo gudbinaysaa marxalada koowaad ee jaceylku uu ku bilaabmaayo ee cabsida ah waa neophobia waayo qofku ama xitaa goob shaqa wada joogtiin ama jida ku aragtay ama xaafad ama jiday kugu aragtay way ku caashaqday laakiin suuragal ma aha si toos ah inaad kula hadasho ama si toos ah inaad ula hadasho suuragal ma aha waa lagu cajabgeliyey dhag yani muuqaalka qofka sawirka aad ka qaadatay maskaxdaada markii analyze garaysay dhag cajabgelin markaa ka heshay qofkii marxalada neophobia galaysa tanina waa normalo nooleyaasho dhamaa ka siman qofka markuu qof cusub uu barto neophobia ku jira wuu baqanaya wadnihiisu way garaacmayaan isagoo dhan waxaa waaye qof indhihiisu ay tataagmaan uu noqonaya waayo qofkani wuxuu u dareemaya uma sheegi karo wuu baqanaya saa daraadeed marxalada neophobia waxaa loo baahan yahay in hormoono kale ay ka awood badiyaanoo qofka la furfuro motivation la siiyo qofkii uu dhex galo uu isku dayo inuu la hadlo kadibna howlihii uu u gudagaalo laakiin dadka qaarkooda waxaa jiro marxaladana neophobiaha ku dheeraanayso qof ay jecel yihiin laakiin ma sheegan karaan weliba noloshoodu qayb kamid ah qofkaasaa milkiyay laakiin uma ogo looma ogo sababtoo ah neophobiahana ku adag neophobia maskaxda labada qof markay isbaranayaan xaalada koowaad ay is arkayaan ayna iska heleen qaarkood qaarka kale saacadahaasi maskaxda qaybta amigdaala way gubanaysaa yani gubashada maaha midii dabka oo kalea cabsi yani qofkii cabsi u dareema maadaama amigdaalaha maskaxda qaybta cabsida stresska walwalka waxyaabahaas ay qaabilsan tahay maskaxda qaybta amigdaala waxay qaabilsan tahay in qofka cabsi ay kusoo dayso qofkii cabsi u dareemaya qofkan lama hadli karo laakiin ilaalay isku wadaan way is ilaashanayaan way isfiirfiirinayaan way kala jeesanayaan kaanama inaysan yani kala jeedaan oo kale iska dhigaan ama nin walba ama qof walba neophobia ku jiraan marxaladan waa neophobia marxaladan qofka si uu uga gudbo waxaa loo baahan yahay hadday ku dheeraato waxaa waaye neophobia uu qofkii ku weynaanaya oo jecelkiisu ma sheegan karo 2 bilood ama bilooyin kadib oo qofkii isqarxin doona laakiin waa inaad fahamtaa maskaxdaada qaybta amigdaala ku dhibeyso markaas xilligan aad ku jirto cabsida wadnahaadu ay garaacmayaan maskaxdaada qaybtan amigdaala stress badan kugu hayso laakiin maskaxda qaybtan amigdaala kaliya ma ahe systemka yani qaybta abaalmarinta maskaxda active noqonayso xilligaas qaybtan maskaxda active markay noqoto hormoonkan dopamine-kan yani qaybta abaalmarinta ee maskaxda dopamine-ka la soo daayinaya oxytocin-kii wuxuu aamusinayaa amigdaalaha hormoonkan oxytocin wuxuu aamusinayaa amigdaalihii amigdaaluhu mar haddii la aamusiyo amigdaalaha dareenkii cabsida ay kugu soo daysay ee ah in wadnahaadu ay gangiiraan qofkii aad ka jejeysato indhaha aad taagtaagto oo qofkii yani waxa u sheegan kan weyso marxaladaasi hormoonkani amigdaala u aamusinaya amigdaalaha markuu aamusiyo
dan qofkii wuxuu bilaabaya inuu motivation isa siiyo qofkii naftiisa isagaa horumarinaya wuxuu isleeyahay may waa bani aadam haddii xitaa waxyaabo xun ah kala kulanto waa normal wax fiican aa dhici doona la hadal qofkii motivation isa siinaya motivation hadduu isa siiyo qofkii uu ku dhiiranaya inuu la hadlo qofkii oo message-ku u baahnaya inuu usoo gudbinaya hormoonkani waa hormoonka qofka cabsida ka qaada waa hormoonkan cajiib ah runtii waa xataa hormoonkan kale markaa u fiirso waa atom numberkiisu aad iyo aad uga duwan yahay sidaa ujeedid complex waaye saa daraaddeedu hormoonkani markuu amigdaalahan aamusiyo qofkii marxaladaasi kimisteeda jirkiisu dhama isbedelaya caashiq buu noqonaya sida muuqaalkan kaaga muuqato muuqaalkan haddii aad fiiriso qof walba qof yacni caashiq uu ku jiro oo kale uu dareemaya indhihii qof inkuu isku qabto sidaas oo kale qofka amigdaalaha marka la aamusiyo oo qofkii cabsidii uu muxuu ahay ay ka baxdo oo qofkii hadal uu ku bilaabo isagoo dhan kimisteeda noloshiisa isbedelayso maskaxdiisu waxay bilaabaysaa hormoono cusub inay soo daayaan ay bilaabayaan hormoonadan waa hormoono caadi oo noloshaana kamid ah yani hormoonadani ma aha hormoono jacayl keliya qaas ku ah laakiin waa hormoonada caanka ku ah oo lagu yaqaano jacaylka maadaama inta badan jacaylka inaga aan ka hadalno xilliga xanaaqsan tahay xilliga faraxsan tahay xilliga hormoonada soo daaya waa isla ahaan laakiin xilliga jacaylkuna siyaabo xad dhaaf ah loo soo daaya iyaguna siyaabo xad dhaaf ay u falgalaan qofka mucaashaqa ah markuu qofkani uu la hadlay uu hadalkii ku bilaabay oo maskaxdiisii la aamusiyay motivation la siiyey marxaladaasi qofkii hadalkii wuxuu u soo sheegay maskaxdiisi waxaan ka go-eynin laxdadaasi yar ama daqiiqadahaasi uu waqtiga qofkaasi ula soo qaatay maskaxdiisu mustaxiil waa inay ka go'do qofka mucaashaqa ah inuu ka fikiro in badan qofka uu jecel yahay waxay si toos ah ula xiriirtaa heerka serotoninka la xiriirtaa qofkaanuu soo bantay qofkaanuu la soo hadlay ama qofkaanay la soo hadashay geelkii iska dhigtay way isxuraysay qofkaanay la hadashay danna natiijada kala soo kulantay iyo saacadahaasi maskaxdeeda waxay ku noqonaysaa saacado cajiib ah fakar uu bilaabaya qofkii heerka serotoninkaada hadduu kuugu bato waxa waaye fikirkii kuugu badanaya yani qofkii waa ka fikiraysaa serotoninkaada hoos hadduu usoo dhacan stress badan baa ku gelaya serotoninkaada hadduu bato farxadii waaye haddii laakiin hoos usoo dhacdo stress badan iyo waxaa ku gelaya qofkii telefoon yar oo fiiriyay ama meel yar oo u jeestay inaa wax ka raadinayso ceeb inaa ka raadinayso durduleel inaa ka raadinayso bilaabaysaa sababtoo ah qofka maanta dhan wuxuu isleeyahay si uu u hubsado mar labaad iyo mar saddexaad chicken inuu u sameeyo war markaa la hadasheen dheheedu sidee bay u muuqdeen qofku rabti may ahayd mise sidanay ahayd ama qofkana xitaa markaa qaabilaysa sidee buu u muuqday yani physical ahaan aragtida aad ka qaadatay maskaxdaadu waxay bilaabaysaa inay dib usoo naqnaqato waa marxalada stresska markuu hoos usoo dhaco waa serotoninka hoos usoo dhaca qofka markaan caashaqa ah oo qofkani ay isticlaadaan dabcan marxaladahani biochemical waxa waaye oo complex ah oo maskaxda habkay ugu shaqeynaya runtii formal ahaan in loo soo saaro aad iyo aad u adag waaye laakiin marxaladani marxalad bilow iyo darajo dhexe iyo darajo yani lixaad leh baa waaye oo marxalado isku xirxiran waaye marxalada koowaad qofkii wuu bartay stress badan baa ku jiro walwala ku jiro si uu u hubsado mar walbo xaaladii sabirkii maskaxdii kusoo celceshanaya ma lagu aqbalay ma lagu jecel yahay ma isdhihi kartaa waa yani waxbuu qofkii mala awaalaya mala awaalkan tirada badan sabab waxay u noqonaysaa sometimes qofka mala awaalkii inuu ka yaraado positive inuu isugu sheekayo bilaabaya dopamine ku badanaya xilligan waxaa suuragal ah dadka mucaashaqiinta oo tobigyadan aadka ugu guda jiro laakiin waxyaabahani maskaxdooda ka dhex dhacay aanan ogeyn inay dhahaan anagu masada xayawaanada nahay hormoono ma nagu ciyaaray ficlanna hormoonada waaye hormoonada isbedelkoodu waa inaga isbedelkeena xayaatadeena qofka mucaashaqa ah sometimes dhaqamada lagu arko iyo waxyaabaha uu sameynayo waxyaabaha normal caadiga bani aadamka uusan sameynan normal uu qofkii noqonaya xitaa qofkii waxaa suuragal ah inuu adoon u noqdo qof kale qofkaas uu warka maqlo qofkuu jecel yahay waalidkiisa ama xitaa familkiisu xiriirkii kala dhexeeya qofkii inuu jiro بسبب قفكو جعليه درتيدا اما قفك جعشاي درتيدا اني حيرينك uga jirta dhici karto qofkii waxa dhici karo yani hatta inuu jinkiisi gowraco uu qalqalo yani jinkiisi dib u gaarsiyo qofkii ma dareemayo ban xaaladahan qofkii markuu ku sugan yahay hadba hormoonadiisa isbedelay hormoonadaaduna maadaama xayaatadaada functionkeeda dhan wax la xiriir ay yihiin way ka awood badan yihiin wax walba caadiga ah qofkii inuu dabaal noqdo qofkan uu xirnaado qofkan la'aantiisa uu noolaan karin حتى وعن مرحلة إنه عندنا وقت adiga aan kula qaadanay xayaatadeeda xilliga ugu wanaagsan waaye yani
erayo badan oo romantic iska oo meelaha lagu qanqaro qofkana motivation lagu siiyo ama buugaagta badan ay ku qoran yihiin waa hormoonkan dopaminekan oo anaga maskaxdeena wax badan gadgadinayo. saa daraadeed hormoonadani siday u falgalayaan ayaa waxay yihiin si cajiib ah runtii. qofkana markii marxaladan uu ku jiro cid uu warka maqlayo ma jirto, cid uu wax ka dhageysanayo ma jirto, kaliya waxa u cad uu adoon uu u yahay. adoon iska dhay yani erayga ma aha xumaan, adoon waxa ula jeedaa qofkaas uu jujuuban yahay oo uu xirxiran yahay. qofkaas uu xirxiran yahay waa qofkaas uu jecel yahay amarkuu ka maqla wixii sameey uu dhaho sameeya, xataa waxyaabo normal bani aadamku uusan ku dhiiranin hadduu ku qasbiyo inuu sameeyo, yani waa qof maskaxdiisa la gumaysanaya. asal ahaan jacaylku ma cudur baa dooda ah halkan ay qayb kasoo gelaysaa, waayo qofka waxyaabaha dareemihiisa jirkiisa sidani u daroogeynaya, sidani u bedelaya oo isagoo dhan u doorinayo ma yihiin qayb kamid a cuduradan disorderka oo kale. asal ahaan ma la dhihi karo, laakiin jacaylku inuu noqdo inuu xadka ka baxo waa nooc disorder, laakiin inuu dhexdhexaad noqdo oo qofkani wixii uu la sameeyo laakiin uu jeclaado, uu waqti geliyo, uu ka fekero waa okay. laakiin xadka inuu ka baxo iyo xuduudda uu tilaabsado heer qofka uu gaaro, yani qof sidan oo kale maskaxdiisa qof kale ay u xiran tahay, haddii erayo xun uu kala kulmo ama waxyaabo oo qofkani aanan cajab gelin, dhaqan xun lagu dhaho, waxay sabab u tahay qofkaasi hadduu dabaq iska soo tuuro xataa normal inay tahay qofka inuu isdilo, inuu isgubo, inuu isqarxiyo, inuu biskoolad isku dilo waa suuragal. sababtoo ah hormoonadiisa oo dhan cid kale gacantay ugu jirtaa. waa sababta la dhaha qofkani waa sakaraad waaye, dad la-aantaada waaye, qofkan qanci. runtii waa nooc disorder runtii qofka markuu xaaladan uu ku sugan yahay. hormoonadani marka hadba wadnaha qofka inay garaacmaan sabab u noqonayaan. sometimes qofkii muuqaalkiisii inuu ku celceshto uu ka fekero, hurda la-aan ay ku ridi kartaa, sidoo kale cunto la-aan qofkii inuu ku dhacdo sabab u noqonaysa. waana wax normal bani aadam walba oo ku dhaco waayo. okay, tijaabooyinka lagu sameeyo dadka mucaashaqiinta oo jaceylka xad-dhaafka ah qaba waxay tilmaamayaan ragga siday wax u jeclaadaan iyo dumarku siday wax u jeclaadaan same inaysan ahayn, aad iyo aaday u kala duwan yihiin. raggu waxay lamaanaha ku xustaan, ama xitaa intaan u gudagelin ka hor, maskaxda ragga iyo dumarku markaad fiiriso sida ay u muuqato ama biology ahaan ay kala yihiin, aad iyo aaday u kala duwan yihiin. gabadhu maskaxdeedu way ka duwan tahay ragga biology ahaan and physiology ahaan, asal ahaan sida loo kala duwan yahayba. laakiin kala duwanaanshahana waxay xiriir la leedahay sida lamaanaha lagu soo xulan lahaa. ragga waxay lamaanuhu ku xustaan muuqaalka, gabadha muuqaalkeedu wanaagsan yahay, gabadha hormoonadeedu ay baalansi garansan yihiin, gabadha gabarnimadeedu ay dhammaystiran tahay, waa gabadha muuqaalkeeduna uu wanaagsan yahay. ragga intooda ugu badanna ay ka daba ordaan. okay, maadaama maskaxda markii qalabka lagu xiray dadka mucaashaqiinta ama doorashada lamaanaha waxaa la indheendheeyay ragga inta badan aragtida keliya inay qofku ku xustaan, waa sida biology ahaan dadku muxuu ahaay. laakiin dumarka qaarkood waxaa laga yaabaa in aragtidani maadaama muuqaalka la leeyahay inay u arkaan waxyaabo xun, muuqaalka keliya qofka inaan lagu qiimeynin. waa aragti logic ah, waa aragti aad iyo aad cajiib ah, waa aragti wanaagsan qofka muuqaal ahaan in lagu doorto. sababtay muhiim ay u tahay aragtidana sir badan baa ku jirta, laakiin marka muuqaal kaliya xoogaa erayga wuxuu noqonaa eray aan toosnayn, malaayiin sano wax la xiriira waay. laakiin gadaal danbaan kaaga sheegi doonaa qaybta dumarkuna waxay iyagu ninka ay ku doortaan, inkastoo laga wada siman yahay muuqaalka iyo soo jiidashadu iyaga laftinkoodu ay fiiriyaan, haddana labadooda waxaa saameyn badan oo dumarku ay lamaanuhu ay ku xustaan waa characterka. yani ninkan character ma leeyahay, characterkiisa ay fiiriyaan, characterkiisa ay ku qaabilaan. waa maxay character, sidee bay character ku doortaan, characterka iyo falgalka maskaxda wixii dhan gadaal dambe kaaga sheegi doonaa. okay, maskaxda ragga haddii aan ku hormaro, maskaxda raggu gabdhaha ama xitaa tusaalahan fudud, saddexdan gabdhood ee kuu muuqda haddii aankan asmeyso rag badan aa weydiso ama xitaa muuqaalkan qof walba daawanayo, saddexdan gabdhood gabadha ugu badan ee raggu ay dooran doonaan waa gabadhan saxda ah, yani dhexda ku jirto. gabadhan dhexda ku jirto maxaa rag badan ay u doortaan, tan ay u dooran waayeen, tan ay u dooran waayeen? sabab gabadhan dhexdeeda dhuuban. gabadhan dhexdeeda haddii ay dhuuban tahay waa sababta keentay rag badan inay iyadu ay usoo tartamaan. sababtoo ah gabadha dhexda dhuuban inta badan laftinkooda dumarku waa aragtay, yani waxaa suuragal ah in dhexdooda inay yarayaan, inay ku dadaalaan technique kala duwan si kastoo u isticmaalaan, laakiin dhexda mar walba inay yarayaan u baahan yihiin.
dhexdan maxaa ku jiro, dhexdan maxaa loo soo aadaa, dhexdan yani maxaa unique ka dhigay. dhexdan waxaa la aaminsan yahay malaayiin sano ka hor dumarka dhexdoodu ay yar tahay, waa dumarka caafimaadkoodu inta badan taam uu yahay, waa dumarka la aaminsan yahay in ilmo caafimaad qaba ay dhali karaan, waa dumarka la aaminsan yahay inay maamo inay naqdaan ama sidoo kale waqti ay siiyaan, yani ninkooduna qancin kara, dumarka ku habboonee fudfudud ee caafimaadka qaba ilmo fiican la dhali karaan, sidoo kaleetana dumarnimadoodu ay dhammaystiran tahay, dumarka loo anka waayo dhexdani malaayiin sane la xirantaa, waayo qofka markuu dhexdiisu ay complex tahay dhammaystiran tahay ilmo fiican ay qaadi kartaa. laakiin marka kuwa dumarkan kale loo eego balance maahan, yani sababo badan oo ay uga duwan yihiin jiro, balance ma lahan, maamanimadu kuma fiicno, ama waa caajis, ninkeedu waqti ma siin karto, reason badan baa jiro oo dumarkan dhexda dhuuban loo doorto. intaa kaliya raggu ma ku doortaan dumarku? waa maya. sidoo kale waxay ku doortaan iyaguna muuqaalka araga symmetrigu, yani intaanan symmetriga u gudbin, dhex dhuubnidan laftinkeedu waxay xiriir la leedahay heerka dumarnimada. qofka markay dhexdiisu ay dhuuban tahay, xabadkiisu ama hormoonadiisuna inay balance noqdaan sabab ay u noqonayaan. yani dumarka intooda ugu badan waxyaabaha aadka ugu fakeraan ama ay qof walba u daneeyo waa in xabadkiisu uu ka dhigaa xabad yani attractive oo soo jiidasho leh. qofku uu isku dayaa waxyaabihii qofkan kale ee jinsiga kasoo horjeedo uu isugu dayi lahaa inuu yani attention uu ka helo, ama qofkan siduu kusoo jiidan lahaa isku dayo, si xabadkiisu inuu weynayo, gadaashooda inay isku dayda in waxyaabo ay ka badbedesho. waa categoriga khiyaaneynta dabeecadda sharcan ama kuwaasi gadaal danba uga hadli doonaa. laakiin hormoonadu siday u balance garansan yihiin, caafimaadka gabadhuna inay dhammaystiran yihiin baa laga fahmi karaa. symmetrigu gabadha haddii aan u imaado, muuqaalku waxaa loo baahan yahay inuu yani waxyaabaha inta ugu badan ee ragga gabdhuhu aadka usoo jiitaan ka hadlaya, khaasatan maskaxdooda. muuqaalka aa ujeedid waa inuu noqdaa mid symmetrica, yani sanka, faruuraha, indhaha, cabirkoodu waa inay noqdaan mid isku jaan go-an oo dhammaystiran, yani golden rotation ama golden rate waa inay noqdaan mid numberkiisu isku jaan go-an isagoo dhan, yani symmetric. cid u baahan way baawi kartaa waxa loola jeeda ama wuxuu yahayba, yani waa topic caana, waa inuu symmetric noqdaa. sawiradan kuu muuqdo sawir symmetric ah kuma jiro, yani sawiradan labadan sawir cid dooranayso oo rag ah ma jirto, yani boqolkiiba xitaa 99.99 cid dooranayso ma jirto, waayo wax symmetric halkaas ma jiro, attractive-na ma aha, cidna ma dooranayso. haddaba qaybta dumarka haddii aan u imaano, dumarku maxay raggu iyaguna ku doortaan, astaamahay ka fiigaan marka laga soo tago inuu qurux lahaado, sidan inuu cadaan ahaado, may. dumarku iyagoo aragtida way fiigaan, ama waxa u muhiimsan waa characterka. sawiradan aa ujeedid, maybe ninkan timaha habkuu u qurxiyey, habkuu u sameeyey, habkuu u xirtay waxyaabaha tabeebahan, yani habkuu yani katiinadan u xirtay gacmaha, style waay. stylekani kabaha, dhinac walbo waa dumarku waxyaabaha ayaga maskaxdoodu cajabgelinaya, characterka. ama ma ahee haddii character aadan lahayn, ugu yaraan waa in shandadaada lacag ay ku juri kartaa, oo waa inaad taajir ahaan kartaa, qof yani power leh. powerku laftinkiis waa nooc characterka kamid ah. qofka markuu lacag leeyahay power buu leeyahay, wax walbuu qabsan karaa, wax walbaa la samaysan karaa. saadanadeedu ama ma ahe ugu yaraan waa inaad adigu ninun ahaataa, si advantage aa u lahaato, gabdho badan aa u hesho, waa in aad adigu ugu yaraan character aa lahaataa. maybe fanaana ahaan kartaa, yani fanaanku laftinkiisu waa qof bulshada oo caan ah oo dadku ku dhex jiro, saadanadeedu dadku uu ka duwan yahay, waa mid astaamo qaas oo dadka dhan aanan lahayn leh. saadanadeedu dumarku characterka iyagu in badan ay muhiimad siiyaan. maybe lacag u lahaan karaa, maybe wuxuu noqon karaa qof aftahan ah. ugu yaraan xaafada aad ku nooshahay, styleka labiskaagu hadduu qurxan yahay, styleka yani kabaha, dhanka, timaha, yani haddii characterkaada aad toosiso waad ka advantage badan tahay ragga aanan characterka lahayn, ama ragga aanan characterkoodu wanaagsaneyn. saa daraadeedu waxyaabaha dumarku jeceelku loogu abo, ama jeceelku ragga ay u jeclaadaan ama ay ku xustaan, mid kamid a waa characterka. okay, doorashada lamaanaha haddii aan u imaano, doorashada lamaanuhu asal ahaan waxay si toos a ula xiriirtaa waa balancega hormoonadu. laakiin hormoonada intaan u gudagelin ka hor, ragga inta badan dumarka xaggooda laga soo doorta ee aadka loo jecelyahay, nimanku waa nimanka noocan oo kala.
nimanka noocan oo kale ah dumarka intooda badan waa kuwa xaggooda laga xushto. Sababta loo soo xushto baa ku fiirso, ninkan boqolaal nin oo ka duwanaa joogto, malaayiin xitaa oo ka duwanaa joogto, laakiin ninkan oo kale yani ninkan hadda kadhigis ma aqaano, haddana internetka kasoo qaatay, sababaha usoo qaatayna waa in wejigiisu symmetric ku yahay. symmetrickan waa ku fahamsiin doonaa nimanka noocan oo kale aad iyo aad ay ugu soo jiidasho fiican yihiin nimanka kale. yani character hataa haddaa leedahay symmetricgaagu wuu ku caawinaya, characterkaadu caawinaya, laakiin character keliyaan leeyahay symmetricna ma leeyahay, advantage-ka aa leedahay xoogaa hoos u dhac baa ku imaanaya. laakiin dumarku waxyaabaha sida aadkay u danayaan ama sida aadkay raggu ay ku doortaan waa astaamahan symmetricga. symmetricku waxaa loola jeedaa wejigiisu qofka inuu isku jaango-naado, indhaha qofkani iyo faruuraha inta u dhexeysa cabirka u dhexeeya, iyo faruuraha halkani saddex xagalka u fiirso waa triangle. labada faruurtan qeybtan iyo qeybtan iyo qeybtan kor waxaa moodaa sida yani triangle iyo afar xagal shan xagal oo kale, iyo indhaha qeybtanna waxay si toos ah isugu jaango-ayiin faruuraha, cabirkooda ee dhexda ahna waa kuwa isku jaango-an. sidoo kale sanka markaa u imaadana labadan san inta u dhexeyso cabirkeedu waa triangle, yani waa saddex xagal. saddex xagalkan dhexdiisana haddii yani calaamadii buuxinaya saddex xagalkaa ujeedaa, qeyb walba yani waa triangle, qeybkan saa ujeedid. symmetricga qofka markuu sidaan yahay waa astaamaha filimaanta, waa astaamaha characterka, ama xitaa filimaanta markaad fiiriso film dad foolxun ee dilaya ma jiro. atoorayaasha filimaanta maxaa loo jeclaadaa, maxaa loo dabaundaa? characterkooda saxda markaa fiiriso waxaa laga yaabaa dumar badan inay atoorayaasha jeclaan jiraan inay ka leexdaan baa laga yaabaa, ama dadka ay filimaanta ka jeclaan jiraan. filimku dad khubaro ah oo arrimahani sida aadka ugu duunduleelo yaqaana ha soo disaan jiray, habka qofka midabka loogu baranayo, habka qofka jinkiisa loo dhisayo, habka qofku wax walba yani symmetricga qofka waa lagu soo aadiyaa si filimka uu u noqdo mid popular oo dad badan ay u daawadaan oo lacago badan looga sameeyo. tani waa doorka astaanta ugu muhiimsan ee dadku lagu soo xushto ama lamaanayaashu ay isku soo xushtaan. sidoo kale waxyaabaha lamaanayaasha isku soo xushtaanna waxaa kamid ah tijaabooyinka markaan ka taagna xitaa kala duwanaanta ama kala fogaanshaha jiinka. kala fogaanshaha jiinka waxaan ula jeedaa noolayaashu mooran ay kala jiin duwan yihiin, ay kala fog yihiin, isu soo jiidashadooda, iscaashaqooda, isku imaatankooda iyo inay nolol samaystaan yani jaaniskooda aad buu u badan yahay. jiinkan waxaa ula jeedaa ama si fudud jiin haddii aadan aqoonin topigaas ma geli doono, noolayaasha ama familku ama xitaa ilma adeeradaada ama dadka kula dhashtay qaraabadaada ah jecel badan in uma qaadaysid, waayo ma kusoo jiidan karaan, nafsad ahaantaada ma qancin karaan ilma adeeradaada, ilma abtiyaashaada, ilma eedadaada iyo dadka adiga familkaaga ah iyo dadka kale ee kaa duwan markaa fiiriso se ma ah. waay ilma adeeradaada aysan kusoo jeedanin attention badan aysan yani aadan uga helayn, sababtoo ah si kastood u qurxoonta, si kastoo dadka kale ay kaaga soo daba ordaan, laakiin ilma adeeradaada iyo dadka kuwa ka agda dhow ee qaraabadaada ah agtooda wax badan oo soo jiidasho badan kama lihin, sababtoo ah jiinkiinu hal family buu ka imaaday, dheecaankiinu hal geed waayo. saa daradeedu maadaama ay isku dhow yihiin hormoonadii ka helitaanka, isu soo dhawaanshaha, caashaqa, deactive waa adinku idinma shaqeynayo. saa daradeedu maadaama dadku ay kala duwan yihiin oo ay kala fog yihiin, hadda sabab waxay u noqonaysaa in jiinkiinu isu soo jiito. tijaabada Helen Fisher waa anthropologisto arrimahan sida aadka uga hadasho. buug waxay leedahay why we love, yani why inagu jecel noogu dhacaa. buuggaas haddaa akhriso wax badan oo sayniska ku saabsan iyo jecelku waa fahmi doontaa. jecelku marxaladuhu leh maaha jecelka romantiga iyo heblaayo hebelaas jeclaayeen iyo heblaayo waqtiga qaadan jiraan, no. waxyaabaha laga hadlayo waa waxyaabaha maskaxda iyo jirka iyo anatomiga isbedelayo. waxyaabahan maadaama cilmiga iyo tijaabada casriga ee cilmigu saynisku ay yihiin, Helen Fisher kitaabkeeda waxaan oo dhan uu ka caawin doonaa. tijaabada ay samaysay Helen Fisher waxaa kamid ah, waxay isku dayday inay baarto lamaanayaashu sida iyagoo aanan is arkin sida ay isku soo xulan karaan. u fiirso, waxay ka codsatay yani rag ama niman yani basketball cayaarayo, fanaanada ay ku cayaareen, waxay ka codsatay ay ku dhidideen dhididkooda inay soo qaado, kadibna group gabdhaha inay u geyso, gabdhahana ay ku dhahdo fanaanadahani carabsada uraya. fanaanadahan u fiirso waa jecel ka bilaaban doona shir, wax in wax la shir oo la urayo, dana natiijada ka dhalan doontaa waxay isku bedelaysaa caashaq. dumarkii markay mid waliba fanaanadihii yani ma aha shir aad u daran, ma aha shir iska dhexdhexaad oo macquul ah, waxaa la indhendheeyay oo la ogaaday gabar waliba
inay dooratay shiinka ugu macquulsan ama shiinka ugu macquulsan oo soo jiidasho leh, khaasatan symmetry-ka jiinkeeduna aadka ugu fog, ninkan nimadiisu ay muuqato, biologic systemkiisu khaasatan maxaa la dhahaa unugyada difaaca jinkiisu ay aadka u horumarsan yihiin, ee la dhihi karo generation fiican baa qofkani ka heli kartaa haddii aan nolol la wadaagto, la dhihi karo inay wada doortaan bay sabab u tahay. haddii aad u baahan tahay Helen Vision qor internetku ka raadi tijaabooyinkani waa arki doontaa. sidoo kale dhamaystirnaanta raganimadu waa baawankii muuqaalka, waa baawankii codka, waa baawankii murqaha, waa baawankii yani astaamaha raganimada oo dhan inay ka muuqato, waa astaamaha ugu muhiimsan dumarku ay kusoo xistaan. laakiin qofkan inuu adiga kaa helo jidka adigoo socda, inuu adigoo shaksi A ah uu ku doorto, shaksigaana B uu ka leexdo, waa in symmetric aa leedahay. symmetrigaagu mar walbo waa in uu kusoo jiitaa ama qofkani uu ku qanciyaa. gabadhaanina symmetrigu xasaasiyu maskaxdeedu gee mar ay aragto nin sidan oo kale isugu jaango-aan oo symmetric leh, maskaxdeeda qaybta qaabilsanka dopamine-ka ama abaalmarintu active ay noqonaysaa. dan waxay bilaabaysaa qofkan inay usoo jeesato, iskuna dayda inay barbarto marxaladihii neophobia iyo ay kasoo gudbaysaa. okay, labadan sawir haddii aan isku dayno, labadan nin haddii ankan aad samayso sawirkooda aad qaado, kadibna gabdho badan aan ku dhahda labadan sawir keebaad jeceshihiin mid doorta ama keebaad jeclaan lahayd nolol inaad la qaybsato, waxay ku oran doonaan ninkani koowaad baan jeclay, ninkani way loo doontay, ninkan B loo dooran waayo. u fiirso, ninkan 99% waa ninka la dooran doona, sababtoo ah labadan nin hadday kulmaan ninkani wuu isku jaango-an yahay. u fiirso, halkan iyo halkan, halkan iyo halkan, qaybtan iyo numberka udhexeeya dhexdooda, labadan dhinac walba waa nin isku jaango-an. astaamihii geometric shakliga physicalka muuqaalka ka muuqda uu isku jaango-an yahay. tani ayaa keenaysa muuqaalka aragtida gabadhu ay muuqaalkani ka qaadanaysa ee maskaxdeeda ku dhacayo in hormoonadii farxadda ee jinkeedu way soo daayaan. yani jidkaa socotaa, 100 nina socdaan, laakiin hal nina qaadanaysaa. waay yani ninkan dad kale maxaa waay, ninkan muuqaalkiisa ee wejigiisu siduu isugu jaango-an yahay ayaa adiga maskaxdaada furi karo, hormoonkaada waa ninka active ka dhigi karo. saa daraadeedu ninkan wax symmetrica uguma jeedno, saa daraadeedu ninkan wuu ka advantage liitaa ninkan wuu ka advantage liitaa ninkan kale. dabcan sawiradan anigu si aan example kugu sii darteeda internetka ka soo qaatay, dadkan waa dad internetka iskaga soo qaatay, muuqaalkooda markaa fiiriyay sida loo kala dooran karana aan usoo qaatay. waayo ninkan wejigiisu iskuma jaango-no, isagoo dhan waa halkan iyo halkani aad iyo aad ay u kala fog yihiin. kala fogaansho maxumo, haddana cabirka udhexeeya wuxuu yahay cabir aanan u qalmin qaybta sanki, iskuma jaango-no. haddii dhinac walba aad ka cabirto waa qof yani dhinac walba kala jeeda. saa daraadeedu sababaha ugu weyn ee lamaanayaasha isku soo xogtaan ama electromagnetic dheh, labadan qofkan waan ka helay, ama aragtidii koowaad anigoo dhan waanba bedelnay, jinkayga wuu isbebedelay, qofkan waan ka helay markaa leedahay, maskaxdaada ilayska ku dhacaya indhahaada ee borotiinada qaadaya ee neuronada u gudbinaya maskaxdaada active ka dhigayo ayaa ninkan sabinkiisu muxuu ahaaye hofurayo hormoonada farxadaada. saa daraadeed ninkaa inuu advantage liito waxaa keenayso inuusan symmetric lahayn. haddaba xaaladdu markay sidan ay tahay, dabeecaddu ma la qiyaani karaa? hormoonadan gabdhaha qaarkood uma dhamaystirno, niman badan uma dhamaystirno, ragga qaarkood hormoonadan iskuma jaangoona, sida ninkii haddoo kale oo advantage ka hooseeya oo kale. hormoonadan uma dhamaystirno, waxay bilaabayaan dadka inay dabeecaddu qiyaaneeyaan, waxay isku dayayaan inay plastic surgery sameeyaanoo wejigooda dhinac ka qalqaloociyaan, ay toosistaan, kadibna waxay rabaan si lamaanaha ay u qanciyaan ama attention ay uga helaan si loo soo fiiriyo, ama waxay isku dayayaan inay chemicals adeegsadaan. u fiirso, haddii aad maqli jirtay hubka biologigu, chemical agency waxaa jiro chemistry-ho dumarku ragga ay ku toogtaan, xaqiiqdii maskaxiyan ay u toogtaan. haddii ay noqoto mid kaba xiranta dhaadheer isku dayda dhawaaqa maskaxda dhegta ku dhacay, iyo barfuun inay yani qaybta dhegta iyo qaybta sanku hadday kaa toogatay physicalka, 3 qaybood bay kaa toogtay. dhegaha waa midda aad ku maqleed dhaqdhaqaaqa kabaha, sidoo kale physicalka indhaha ku dhacayo hadday noqoto waxyaabo feeg ah, hadday ku soo xirantay ama haddii waxyaabo aysan iyadaba nature aanan u lahayn sida isticmaalka chemicals hadday muuqaalka kasoo buuxsatay. intaa wixii ka dambeeyana isku dayday plastic surgery haddii ay soo gashay, carafta yani ay soo xataa waxaa jiro
waxyaabo la isku canfiyay kaliya dumarka loogu talagalay waayo ragga aan loogu talagalin sheyga hadduu caraf yahay waa inuu universal noqdaa noole walba u isticmaala ragga iyo dumarka waa in loo simanaadaa laakiin waxyaabo la isku canfiyay waxaa jiro dumarka kaliya ay qaas ku yihiin reasonku waa dareemi kartaa waayo molekulada ku jiro ama molekulada waxyaabahan carfa laga soo sameey ayaa waxay yihiin carafta markuu qofku sanka uu ka jiito hormoonada waxay kicinayaan jinsiga saa daraadeedu qofkan in lasoo fiiriyo qofkan in mar walba isha lagu hado qofkan in la jeclaado waa waxay keeni lahaa saa daraadeedu waxyaabahani waa waxyaabaha dabeecadda lagu qiyaanaya dumarka intooda ugu badan kama warqabaan maybe make upka iyo waxyaabaha lamidka iyo waxyaabahan iyagu waxay ka tahay kaliya waa la maqsada iska maqsada waa quruxdana waxaa waaye dadkaa jecel absolutely sidaas inay ka tahay waa sugangal ama ulama jeedo in dadka aan ku dacayadeynaya ama waxyaabo xun ama qaladad aan ka sheegaya ama biologygu dadku uma naxariisto wuxuu ka sheegaa wixii xaqiiqo ah waxyaabahani malaayiinta kun ee doolar lagu bixiyo ama businesska weyn lagu sameeyo waa sidee baa jinsiga kaasoo horjeeda aad ku qiyaaneyn kartaa ama si fudud dumarku maxay kalankan gaduudka faruraha ay u marayaan waay midabka jaalaha aan loo marnayn waay midabka madowga loo marnayn midabka cadaanka aan loo marnayn midabkan gaduudka maxaa unique ka dhigay dad badan waxay ku dhihi doonaa midabkan gaduudka wuu qurux badan yahay waa iftiin buu ku siina waa sax waa sababtaba qofka inuu qofkan uu soo jiito qofkan aragtida indhihiisa ku dhacaysa inuu xado uu rabo waa sababta keenayso midabka gaduudka asal ahaan dumarku neejar ahaan farurahooda waa gaduud maadaama neejar ahaan farurahooda ay gaduud ay yihiin haddii midabkan gaduudka ay maryaana way ka advantage badan yihiin dumarka aanan gaduudka lahayn waayo gaduudkaadu mar walba wuu dhaldhalaalaya dhaldhalaalkaaduna sabab wuxuu u noqonayaa dad badan inaad kasoo dhex muuqato in dad badan lagaa soo xishto saa daraadeedu waxyaabahani waxay kamid yihiin kimicalka dumarku ay ragga ku qiyaanaan ama kimicalka dabeecadda ay ku qiyaanaan waxyaabo aanan sax ahayn hosbitaallo loo tago maalmo badan loo jiifo layskuna dayo in jirka loo dooriyo sideebaa attractive u noqon kartaa tani dumarka keliya ma aho raggu laftankooda way sameeyaan sidaa ujeedidba sabankani waa plastic surgeon gaban gashay oo muuqaalkeedu dhinac walba qalqashay iskuna dayday numbanka simeetanka siday u haleeli lahayd dhinac walba way toosisay waa isku dayday inay qalqashay sidaana xayaatadu ay ku socotaa tanina waa mid najar ah dabcan qofku siduu attention ugu heli lahaa wax walba inuu sameeyo waa laga filanaya qiyaaneynta dabeecadda ee raggu laftankoodu way sameeyaan plastic surgeon way sameeyaan laakiin ragga iyo dumarku markaa isla bandhigto qiyaaneynta dabeecaddu waxaa moodaa dumarku inay aadka uga badan yihiin marka ragga loo eego ama raggu laftankooda way sameeyaano plastic surgeon bay qaarkood galaano sanka in la dheeraysto ama ma ahe in waxyaabo jirka laga bedelo in faruraha geesaha ama waxyaabo badan la sameeyo plastic surgery raggu cid walba way ogtahay isticmaalka daawooyinka in daawo la sameysto bunqala la sameysto ama in six pack la raadiyo waxyaabo qofku neejankiisa uusan ku dhalanin inuu raadiyo si uu baawo isugu muujiyo qof nimadiisu ama hormoonadiisu isku jaango-an yahay inuu iska dhigo uu ku dadaalayo ama ma ahe xitaa socialku siduu qofku nolol wanaagsan ugu jiro inuu been u sheego ama isku dayo inuu xayaato aanan sax ahayn oo fake ah qofku inuu adeegsado waa waxyaabaha qiyaaneynta dabeecadda kamid aho qofki inuu isku muujiyo qof cajiib ahoo nolol wanaagsan ku jiro si uu qofkan ama jinsigan gabadha attention uuga helo ay usoo raacdo inuu isugu dayo waxay kamid tahay qiyaaneynta dabeecadda ee raggu dumarka ay kusoo jiitaan qaybta u dambeysa kolley topiga waxaan kasoo hadlay saan jeclahay ku dhawaad ama haddaanan qaldaneen saacad yani waqti ku dhow qaybtan yani waxaan uga hadli doonaa oo keliya maxaa laysku furaa sideeda factor kala duwanaa laysku furaa factoryada laysku furana waa waxyaabo runtii nolosheena kamid ah mid lasoo koobi kara maaha laakiin sababta laysku furo si kastoo ay kala duwan tahay su-aashu waxay tahay jaceylku basic ma u naqon karaa ama jaceylku sabab ma u naqon karaa in la maanayaashu isfuraan jawaabtu waxay tahay ha wuu u naqon karaa jaceylka hadduu dhamaado in la isfuro sabab way u naqon kartaa asal ahaan jaceylku sidaan kuusoo sheegay wadnaha kuma dhace wuxuu ku dhacaa maskaxda bar hadduu ku dhacana waxaan ku gadgadinaya ee kuwaalwaalaya ee qofkan agtiisa inaad la noolaatid oo isaga un keliya adduunka ay ka aragtid oo isagoo keliya noloshaada u baabi'isid waa hormoonkan haddii uu kaa maqnaado normal bani aadam baa naqanaysaa hormoonkan xad buu leeyahay sida caadigaaba jaceylku kitaabka William Fisher kaa kaafin doona waxaan oo dhan ama
jaceylku maadaama step by step xataa lamaanayaasha marxalada neophobia hadday ka baxaan oo isbartaan oo xoogaa dabeecadooda isfahmaan oo positive ay noqdaan, hormoonadii waxay bilaabayaan inay si xoogaha sidii bilowga ka duwan inay u shaqeeyaan ay bilaabayaan. intaa wixii ka dambeeyo marxaladuhu way isbedbedelayaan hadba. dadku isku guursada jaceylka xad dhaafka ah ee waalida hormoon, yani hormonisku isku guursada, aad baan ku jeclay biyahan kaa dhaxanka iyo hormoonada igu kacsan iyo hormoonada igu badan isku guursada bilooyinka ugu horeeya dadkaas inay kala tagaan bay sabab u tahay. sababtu waa maxay? hormoonadoodu si degdeg ay ku bilaabmeen, si degdeg ku kaceen, si degdeg ahna way ku dhamaaneen. si degdeg hadday ku dhamaadaanna reason aan qofkan ula noolaatid ma jiro. jaceylku markuu ugu dheeraado uu bato ugu yaraan waa inuu 7 sano u socdaa. 7 sano waliba waa dheerayo, waa waqti aad u fog. waqtigan aadku u fog inta ugu badan dadku ma ay soo gaaraanba jaceylku siduu ku bilowday marxaladii dhalinyaronimada markuu kasoo baxo ugu dambeyn canuga ugu horeeya lamaanayaashu haddii ay kala helaan canugaasi intaa wixii ka dambeeya hormoonadii way baaba'ayaan. dumarkii ama gabadhii maamo ay noqotay hormoonadeedu isbedelayaan, ninkii hormoonadiisu isbedelayaan, yani way fadhiisanayaan. intaa wixii ka dambeeya qoyskaasi 2 jaanisa u furan, imaa inay kala tagaan ama meehe waa inay logic jaceylkooda ay ku wadaan. waayo hormoon family laguma dhaqi karo. family hormoon haddii aad isku daydo inaad ku dhaqdo waa familkaasi uu baaba'aya, waa isfuran doonaan, way kala tagayaan. waayo hormoonadu haddii meel ay ku bilowdeen, hormoon haddii emotionally waa hormoonku laftinkiisu waa daraan iyo hadduu noloshaada ay ku socoto dareenkaada maalintuu dhamaado waa adna uu dhamaanaya. saa daraadeedu ugu badnaan waa 7 sano. 7 sano hadday dhammaato noloshaada si ay u socoto waa in logic ay ku socotaa, waa in la dhahaa danta iyo nolosha iyo waxyaabaha si ay u noolaan lahayn inay ka fakaraano falkaasi logic ay ka shaqaysiyaan. haddii logic ay ka shaqaysin waayaan cagsigooda waxaa dhacaya inay isfuraan. saa daraadeedu sababaha ugu muhiimsan ee labada qof ay isku furaan waa jaceylkii oo dhammaaday. laakiin sababo kala duwan oo jaceylka dhammeynaya laftinkiisu way jiraan, laakiin basic waxaa waye sababahaas haddaan dhinac dhigno jaceylkii oo dhammaaday, hormoonadii oo dhammaadeen. hormoonadii hadday dhammaadeenna maskaxdii waagii hore siday ahayd ma ahayd, si normalay isku bedelaysaa. ugu dambeyn dood jaceylku mala abuuran karaa, qofna ma isjeclaysiin kartaa. anigu shaksiyan waxaan aaminsanahay jaceylku waa la abuuran karaa. waayo jaceylku qof inaad ku abuurto maskaxdiisi, waayo qofka jeclanayso waa noole bani aadam ah. noolaha bani aadamka ahna maskaxdiisu haddii aad akhriso aad taqaano maskaxdu siday u falgasho, siday u shaqayso, anatomigiisu, hormoonadu siday u falgalayaan, qofka markuu attention helay xataa yani maanta intaadan go-aan gaarin ka hor maskaxdaada inay soo gaartay waa la qiyaasi karaa. 6 second ka hor, yani 6 second ka hor intaadan go-aan gaarin ka hor maskaxdaada waa la sheegi karaa go-aankaa gaartay. so teknolojiyadu sidan iyo sayniska mar hadduu u hormaray, qofka hadduu tilaabooyinka cilmiga uu waafaqo qofka uu isjeclaysiin kara. xataa dabeecadda in la qiyaano mar haddii qof la isku jeclaysiin karo ama attention lagu heli karo, qof maskaxdiisa lagu toogan karo, sida chemicalskan la adeegsado qofka maskaxdiisa ama banfuunadan qaaska nimanka loo adeegsanayo kale, haddii la adeegsado mar haddii jaceyl qofka lagu abuuri karo, waxyaabahani waxay ka mid yihiin waxyaabo qofku jaceylka lagu abuuri karo. laakiin waa topic dood ay ka furan tahay, maybe waa igu waafaqi kartaa ama waa igu diidi kartaa. qofkuna waad isjeclaysiin kartaa waa haddii tilaabooyinka cilmigu aad waafaqdo. topiga halkaas uu ku egyahay waana ka baxay. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.